waxaa jirto gabar loo yaqaan magaceedii Nasra Axmed ayaan isbaranay. Nasradaas aan isbaranay marka waxay igu sheegtay inay tahay gabar Soomaaliyeed ay u dhalatay Soomaali Hargeysa reer Waqooyi inay tahay ii sheegtay. Gabadha marka waxay kaloo ii sheegtay in aabaheeda Soomaali uu yahay oo Islaam uu yahay laakiin hooyadeedina maaragtay Hindi ay tahay Christianity. Marka inta badan maaragtay waxaan nolosheeda inta badan aan ku soo qaatay uu tiri dalka Mareykanka Soomaali wax leen joogaa 3 sano oo kale. Gabadhaasi marka waxay maaragtay aad iyo aad ugu bandhigtay igu sheegtay in nolosheedii oo dhan maaragtay ay u hibeysay dhanka maaragtay kuwa cadaanka maaragtay dhanka Mareykanka. Marka ay xaaladda sidaas ayadoo maraysa ayaa maaragtay qoftan caadi ayaan isku sheekaysanay dad saaxiibo wada noqonay oo maaragtay waqti aan wada qaadanay heer maaragtay aan si fiican. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarteena sharafta leh. maanta waxaan idiin haynaa dhacdo xanuun badan waaba su'aale dhacdo naxdin leh maxaad kala socotaa mashruuca gaalaysiinta ah oo ay soo qaadatay gabar Soomaaliyeed oo ku nool USA Abshir wuxuu yiri waxay iga duubtay muuqaal caddaynaya inaan gaal noqday balse kadib maxaa dhacay gabadh ayay in muddo ah xiriir wada lahaayeen gabadhaas waxay ku noolay USA waxayna u soo bandhigtay guur intaan guurka la gaarin ka hor waxay uga sheekaysay nolol akhyaali ah noloshaas oo ah inay hooyadeed Hindi ahayd oo Kristan ah aabaheedna Somalilander oo reer Hargeysa kadib iyaduna waxay iskugu sheegtay inay dadkaas macnaha ay ka mid tahay hooyadeed ama Kristanka ah ama dadkaas ka gaal raaca ah wiilkan Soomaaliyeed wuxuu ogolaaday mustaqbalkii ee guurka wanaagsan ahaa ee u soo bandhigtay gabadhii Soomaaliyeed laakiinse haaf Kristanka ahayd niyadiisana waxaa gashay hami iyo rajo wanaagsan maadaama gabar Soomaaliyeed oo diinta Islaamka aan haysan gacantiisa soo gashay dibna ugu soo celin karayo laakiinse rajadii iyo aragtidii uu qabay waxaa dudumisay gabadhii iyadoo dabin khatar ah u dhigtay dawinkaas uu yahay fiidiyoo inuu iska duubo marka ay u soo dirto warqadda isagoo akhrinaya walaalkeena Soomaaliyeed wuxuu dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee bulshada u badan dhalinyaradana ah uga digayaa dhibaatadii isaga soo gaadhay inaysan ku gadsoomin ay iska ilaaliyaan khiyaanada intaa la eg sanadihii ugu dambeeyay ummadda Soomaaliyeed waxaa ku dhex jiray Soomaali kale oo Kristan ah oo damacsan haaf inay ka dhigaan Kristan ee caalamkana kaga gataan budgetkooda iyo ra'yigooda ay wataan maadaama ayagu aysan ka naxin wax macnaha mataqaanaa Soomaali kale oo muslim aysan ka naxinin maadaama ayagu yihiin Kristan bal walaalkeena Soomaaliyeed fikirkiisii iyo dhibaatadii gaadhay uu ka falcelinayo maadaama social mediaha ugu dambeyn ay soo dhigtay clipkii ay ka macnaha uu intuu iska duubay ayada uu u diray ee xujada ahaa si ay uga hesho kalsooni darteed markay clipkii ay heshayna waxay goysay xiriirkii muddo kadib waxayna soo dhigtay TikTok bal aynu daawano aniguna waxaan idin leeyahay intayna daawan ka hor hasigu waayine fadlan share gareeya gaarsiiya dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ku kala nool yihiin ee caalamka si ay dhibaatooyinka noocan oo kala ah uga digtoonaadaan waxaa jirto gabar loo yaqaan magaceedii Nasra Axmed ayaan isbaranay. Nasradaas aan isbaranay
marka waxay igu sheegtay inay tahay gabar soomaaliyeed ayna u dhalatay soomaali hargeysa reer waqooyi inay tahay ii sheegtay. gabadha marka waxay kaloo ii sheegtay in aabaheeda soomaali uu yahay oo islaam uu yahay, laakiin hooyadeedin maaragtay hindi ay tahay christianity. marka inta badan maaragtay waxaan nolosheeda inta badan aan kusoo qaatay ugu tiri dalka maraykanka. soomaali waxa leen joogaa 3 sano oo kale. gabadhaasi marka waxay maaragtay aad iyo aad ugu bandhigtay igu sheegtay in nolosheedii oo dhan maaragtay ay u hibeysay dhanka maaragtay kuwa cadaanka maaragtay dhanka maraykanka. marka ay xaaladda sidaas ayadoo maraysa ayaa maaragtay qoftan caadi ayaan isku sheekeysanay, dad saaxiiba wada noqonay oo maaragtay waqti aan wada qaadanay, heer maaragtay aan si fiican aan isku aamino oo ayad wax walba aan ii sheegato, wax walba aan u sheegto, wax walba aan isku bandhigano. maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in maaragtay ay dhahdo maaragtay waan isguursanaynaa, bal ka waran arrinkaasi. marka arrinkii marka waa ani waxaan istaa qofta maadaama aa istaqaanaan oo isfahanteen minaa wax meesha problem ka imaan karee sidii aan ku ogolaaday. gabadha markii ay maaragtay arrinkaas aan ka ogolaaday waxay igu tiri horta marka hore niyow baasboor ma leedahay adiga, baasboor ma leedahay? markaan waxaan ku yidhi baasboor ma lihi nasr, baasboor ma lihi, balse laakiin kuma fikrin maaragtay inaan sameysto oo maaragtay aan safar aan waxaas aan sameeyo, laakiin hadda dalkayga iska jooga meesha maaragtay iska xariiftamayaan waxna ka bartaan. okay marka waxay igu tiri marka niyow haddii ani aad isguursanayno ana micnaa dalka maraykanka ayaa joogaa, gaar ahaan maaragtay gobolka California ayaa joogaa, adigana muqdisho ayaa joogtaa, ma suurtagali kartee. marka waxaan sameynaynaa marka adaa maaragtay markaan isguursanayno maraykanka isku guursanaynaa, bal anaa kusoo qaadayo baasboorka, anaa kuu sameynaya $500 kusoo dir doonaa, waana kusoo dirayaa baasboorka ku sameyso. markii aad sameysatan isoo war celi si markaasi Ethiopia ama Kenya aan ku geeyo. sidaas awgeed marka diyaaradda maraykanka meesha kasoo raacay toos California ku keenayso. marka aniga hadalkeeda maaragtay qofta waa qof maaragtay aan isfahano, waa hadalkeeda ciyaarna ilma noqon sidii. okay marka waa qoftii hadalkeeda waa iska aamin. haddana marka waxaa dhacday maalintaasi cabaaraan sheekeysanay, waan kala tagnay. marka waqti kadib saacada kadib 12 saac ama galabtii ay soo qabatay aan sheekeysanay. marka xaaladaada ka waran? xaaladaada maasha allah aadaan u fiicanahay. markaas waxay tiri arrinkii ka waran aan ka hadlayno oo guurka ahaa. markaas waxaa yidhi walaalay waan ogolahay, wax maaragtay cilad ahna ma jirto, problem ah ma jiro, arrinka waa ku qanacsanahay. bas markaas waxay tiri mid jirto saaxiibo, midaas jirta waxay tahay ani aad maaragtay adiga waxaa ballan ku gaaratay oo go-aan ku qaadatay inaan isguursano. waxaan kaa rabaa intaan isguursan horta niyo kalsooni inaa isiisid, waayo macnaa labadeen isma naqaano, qadkaan isku baranay, messengerkaan ka sheekeysanaa facebooka. marka niyo kalsooni inaa isiisaa kaa rabaa. marka waxaa nasroy kalsoonigaada muxuu yahay? inta aan sheekeysan kalsooni maaha miya? aad iyo aad kalsooni waa isiis, laakiin waxaan kaa rabaa maadaama hadda qarash aan soo diraayo niyo waxaa sameysaa warqadaan kuu soo dirayaa, warqadaas adigoo akrinaya soo dir. aniga keliya waxaan ogaanayaa in guursanaysid maaragtay xaajiga aad noqonaysid, waxaan ku xaqiiqsan karaa in sidaas aad sameyso. ilaa markaas haddii warqadda soo turto waxay ka dhigan tahay in micnaa aniga guursanaysid maaragtay midaasna aan niyeysanayo. bal marka hadda waxaan soo dirayana si kalsooni ah inaan kusoo diro. okay marka aniga marka warqaddii markaas ma arkin, warqaddii cabaaraa sheekeysanay kadib warqaddii ay soo dartay. marka warqaddii waan fiiriyey, warqaddii waan akhriyey, warqaddii waxaa ku qoran masiixiyaa ku qoran, balse haddana marka warqadda gabagabadeeda waxay leedahay maaragtay nasr waa ku jeclahay maaragtay christianity. marka aniga warqaddii marka xoogaa waxaan isiraniyo warqaddan saa camal qofta waa u celiya, warqaddan ay soo dartay muxuu yahay? warqaddan niyo waa tii maaragtay aan ku dhahayo soo akhri, ani maaragtay balan waxaa ku gaaray maaragtay in maaragtay aad tahay arrinkii guurkii balankii inaan oofinayo, bas laakiin aniga maaragtay waxaan rabaa bas kalsoonidaas inaad siisid bas. marka warqaddii waana akhriyey waana u diray. mar alaala markaa u diray waxay kadib waxay igu tiri niyo hal mid aan kuu sheego, waxoogaa yar maaragtay problem yaraa jireen oo kusoo qabanaya.
ana marka caadi iskaga tagnay ana markaas nolol maalmeedkayga iska dhacday waqti dambe hal maalin kadib isku soo noqonay markaas waxay igu tiri niyo Hamed aniga kuma wadi karo sababta aan ku wadi karnaa waxay tahay meeshaasi macquul ma inaan ku geeyo Ethiopia ama Kenya labadaas meel aan ku geeyo waxaa yar inay shalay markaa wada hadlaynay waxaa igu tiri maaragtay muuqaal ay soo duub muuqaalkaasna maaragtay wuxuu cadeynayaa in maaragtay aan isguursanayno aniga aadan maaragtay balantii igu bixaynin ayagu cadeysay balse hadda maxay tahay adiga waa tii saas dhahayay hadda balanta maxaa ku keentay inaad saas dhahdo maaragtay labadaas dhinac meel dooro xagna kuma geen karin balantii aawe oo wixii aad igu shardisay hadda waxaas maba loo joogay labadaas meel mid dooro labada meel mar baa dhahay waayo macnaha meesha cid ii joogta ma lahan Kenya hadaa tago cid iiga horeysa ma lahan haddii Ethiopia tago cid iiga horeysa ma lahan meesha meel cidla ma iska tagaan waayo shalay macnaha xag waxaa igu qancisay in aad isoo dhaweyn doono aan isguursanayno bas gabadhii marka sidii maaragtay waxay ugu tiran waxaa iska dhaaf kolay macnaha TikTok iska fiirin aniga marka ku fikran ilaahay iga sareeyay maaragtay in waxaas ay sameynayso ani niyadeyda waxaa ku jiray in macnaha gabadhan sidaan haddii diintan ay aaminsan tahay barirka maalin adin ragaa tahay haddii waxaad u sheegto aad qabtid in hadalkaaga way qaadanaysa ilaan dumar waaye ani waxaasa ku fikraayo marka ayadana marka qorshe kale lahaydoo maaragtay qorshihiina ima dareensinayna markii ii weydiinaysa waxaas bas waa arrintaas markii saas igu tiri gabadha waxyaalo fara badan sameeyay tashtay dad asxaab waa la tashtay dad qaar xataa mashaayikhda aan la tashtay markaas waxay igu yiraahdeen niyow quraan iska akhriso waxaan shaydaamad waaye ee korkaa iska saaray waxay sameyn karta malaha wax walba ilaaha ka weyn qur-aankii iska akhristay masaajidii maaragtay tagay qur-aan la iga soo akhriyay arrinkii xoogaa muddo way iga degtay taqriiban 8 bilood oo kale arrintii ma soconin way iga degtay hal sanad oo dhawaad marka ayaan dhaweeda maaragtay hama ay soo dhigtay 3 maalin isagoo yaalo wiil ka mid ah maaragtay saxaabteeda soo wacay markaas wuxuu yiraniyo absharow muuqaalkaaga wuxuu yaalaa TikTok ana markaas iskuulaan ka imaaday shaqaa ka imaaday meeshaan joogaa bakso waayo marka raashina meesha aan ku qadayna qadada ka soo tagay arrinkii la yaab marka arrinkii ha barbaaray wixii run ay noqotay aniga marka xiska iimaankayga waxaan ku haystay inuu yahay inuu gabadhan kula kaftamaysaa shalay tan macnaha waxaan ay ku dhahaysay gabadha Soomaaliyeed waa sidaas ma sameyn doonto anigana macnaha niyadda waxaa ku jira wuxuu yahay qiin ahaan aan u haystay in qof ila kaftamaan uu yahay shalayna macnaha aan balan aan ku galnay inaan isguursanayno gabadhii sidaas ay u dhaqantay gadaashan dab markii oo ku sameeyay baxth aan ku sameeyay aan barbaaray waxaa ii cadaatay dad badan ay dhaheen gabadhaas gabar baadareed waay dad badan maaragtay sidaas ay soo yeeshay oo sidaasna maaragtay ay gabadhaasi ganacsigeedu uu yahay sidaas ay ku shaqaysato mar gabadha dhowr sawiran ay soo dartay jiray ayadoo qaaban ay soo dartay ayadoo maaragtay jiifto intaas dhan macnaha waxay dareensinaysaa kalsooni macnaha inay ugu qabto marka gadaal danba waxaan ka ogaaday in qoftan baadareed ay ahayd anigana waxaas ku dalgal maalan sameynin ilaaha iga sareeyo ilaahana ima khalaayo oo untay maaragtay asigana qalbigeyga og macnaha qalbigeyga la socdo asiga ayaa qulubta gadgadiya ilaahay waxaa maaragtay ilaahayna markhaati ka ah in waxaan aan ula kacaanan u sameynin oo ilaahay iga sareeyo oo waxaan qirayaa islaamka inuu yahay waxaan kaliya aan aaminsanahay aan ku barbaaray oo diinta islaamka hooyaday ay ku dhashay oo aabahayna ay ku dhalay intaan aan ku soo gaaray aniga igama ahayn wallaahi bilaa waxaas waxaan diintaada ku gado ama diintaada maaragtay diinka ku dooro waxaas igama ahayn anigoo yar ayaa maaragtay ilaahay kor iga soo qaaday qofina iga dhigay marka diinteeda intaasoo san aan kusoo dhex jirina si fududna uguma baxayay shalayna macnaha qofkaasi gabadhaasna ujeeday igu soo bandhigtay ujeedkii anigana igama ahayn macnaha diinta ka baxo balse laakiin aniga sidii ayada hadalkeedii igu tiri kaliya ayaan jawaabta ugu bixiyo marka midaasna maaragtay aniga qasadna uma yeelin ilaaha iga sareeyo waxaan qirayaa shahaadadeynka ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah waxaana aaminsanahay Muhammad inuu nabi ilaahay uu yahay mursalna uu yahay ciisna inuu mursal uu yahay العزم من الرسل oo kamid yahay aniga bariyaan ka ahay gabadhaas wixii soo bandhigtay ayadana baadareeda ahayd waliba dhowr sawir ay soo dartay sawiradii maaragtay inaan soo bandhigo waan jeclaystay laakiin laguma kala sooraan karo liigu yiri
marka walaalayaal maaragtay ujeedka wuxuu yahay aniga horta micnaha si khasadna uma yeelin, gabadhaasina micnaha waxay igu soo dartay micnaha siyaabo kale iyo waddo kale isoo martay. hadda arrinkii banaankii imaaday way soo dhigtay ayadoo maarata danteeda ay fiirsanayso, laakiin ma fiirin maarata danta maaragtay dadka kale walaalahay dantooda ma fiirsan, danteeda ay fiirsatay. laakiin ilaaha maaragtay arrinka ka jiraayo, aniga ilaaha iga sareey in waxaas aan ugu sameyn ula kac, laakiin gafkan wuu iga dhacay. ilaahan maaragta aan u noqonayaa bar dabna maaragta waxaana ma dhici doonto. shalayna maaragta anin daciifnama igama ahayn, bas laakiin gabadhaasi aniga micnaha waxaan isku gaarnay in maaragta mustaqbal la sameeyo. marka mustaqbalkan shay wanaagsan waa ilaahay xaggiisa lagu farxo, waxa ugu wanaagsan waa mustaqbal la sameeyo, waxa ugu xun ilaahay xaggiisa laga nacib yahay in maaragta mustaqbalka la burburiyo. aniga taasaa u fiirinayay. marka ilaahay maaragtay hanaga cafiyo qaladka aan sameynay. shalayna maaragtay ilaahayna wuu og yahay qalbigay in waxaan kasna aan u sameynin. marka intaasaa maaragta aan kusoo gabagabeynaya. gabadhaas Nasra Axmed lahayna ayadana maaragtay ilaaha soo hanuuniyo, gabar Soomaaliyeed waaye. micnaha qoftaana micnaha wax dan uma noqonayso in dadka maaragtay saas ay ugu ciyaarto oo waxay quudato bas ay raadsato. laakiin waxaan leeyahay ilaahay ka cabso, dadkan saayilas iska dhaaf walaaleey, ilaahaygaa rabbigaaga u noqo, waalidaa ku dhalay diinta islaamka wax ka wanaagsanaa ma jiraan. aniga sidaasaa maaragtay idinku soo gudbiyey, berigaan ka ahay waxaani mar dabna maaragtay umana qiimniso mana sameyn doono. ilaahayna ha iga cafiyo. horta gabadhii markii sidaas aan u sheekeysanaynay warqada ii soo dartay, warqadaan ii soo akhri, warqadaan markaa ii soo akhrisid taas waxay ii caddaynaysaa inaan kalsoon tahay oo aan isguursanayno. warqadaas waxay ka dhigan tahay inaan isguursanayno, micnaha diyaar ah u tahay guurkeeni. warqadii ii soo dartaa maaragtay anina aan u akhriyey, ilaa ayadoo hadalkeedii bas aan jawaabayo warqadii aan akhriyey. waxaas aan sheegayna warqadaas ii soo akhriy dhahdaan akhriyo waayo. aniga marka ma u fahansaneen inay fideogaas u gadan yahay oo maaragtay soo bandhigi doonto, uma fahansaneen ilaa qof mid soo sheekeysano waayo. marka aniga warqadaasi caadi aan u akhriyay ahayd. marka warqadaasina waxaa ku qornayna sidaasoo ahaa, anigana igama ahayn diinta inaan ka baxay. ilaa micnaha sababtoo ah micnaha aniga quluubteeda ilaaha daalacnayo. aniga waxaan haddaan ula kac aan u sameeyey ama kas aan u sameeyey, ilaahayna wuu u jeedaa. haddii aan kas aan u sameeyey calaamad ilaha iga soo bixiyo, ilaaha iga saray in waxaas kas aan u sameyn. marka gabadhaasna sidaas maaragtay ay u fikirtay inay maaragtay saas bulshada igu ceebeysato, oo dad intaasoo mujtamac aan la soo wada dhaqmay, oo intaasoo bulsho aan kasoo shaqeeyey, intaasoo maaragtay arday maaragtay aan soo arkay oo macallin soo ahaa, intaasoo igu weji gubtay. anina ilaahay maaragtay waxaan ka baryaya gabadhaasi sumcadeeda iyo wejigeeda ilaahay maaragtay dhulka inoo geliyo. midaasa aniga ilaahay ka codsanaya. maanta barnaamijkan fadhino waxaa ka mid ah wiilkan anaa dhalay Abshir Cabdullaahi Shuutiyaal lahaa. marka agoonnimo kusoo barbaaray ayagoo 10 ah oo ii joogaan islaamana anagu dad oo diin ku dhaqanahay. marka waxaa la sheegayaa fadeexada taalo oo wiilkaygan oo ase ahayn gabar shaydaamad oo ilaahay kasoo furatay, islaam ahayn oo kristaan diinteeda qaadatay iyo dadku fitnaynayso. wiilkay intay sabatay dhulka ay dhigato ay dhahday ninkaas waa nin gaal ah. wiilkayga gaal ma ilaahay ka cabsada, nin muslim waay, shahaadanayo, salaad santiisa dukanayo, nin ilaahay ku xiran waaye. hadduusan ilaahay ku xirnaan lahayn waa dareemaysiin suu yahay xaalkiisa. qof ilaahay ku xiran waa taqaaniin maadaama nuuraayo. marka waxaa idin sheegaya walaalayaalow, wiilasheenow, gabdhaheennow, intii islaam ah. marka waxaa idin dhihi lahaa in cunugan barnaamijkaa kuwa diin in laga daayo. asigana saas maku gaaloobo warqad akhriyay dhahda, warqad ma lagu gaaloobaayo. ninkan kalaab ma tegin, ninkan kristaan maa shabad muu saarno. nin warqad akhrida jaceyl oo dhex marayo warqadan akhri asigana kalsooni siiyey in warqadaas ay tahay in guurkaas la bandhigahay ay tahay. haddii ay noqotay warqadaas akhri haddii lagu gaaloobayo ma lagu gaaloobayo saas. marka ilaahay ka cabsada, wiilkaa iga dulminina. nin islaam waay, nin diin ku dhashay waay, diin ku barbaaday. anagu saqajaan manihi, gurigeena sigaar ma laga cabo, jaad ma laga cuno, ilma saqajaan guriga minoo joogo. dadkeena dad islaam kitaabkaasaan ku dhaqanaa, kitaabkaas aan kusoo kacnaa, aan ku seexanaa. marka ilaahay ka cabsada. marka wiilkan yaa laga dulminin, ilaahay ka cabsada. wiil islaam ah, islaam ma tid inaad dhahdiin aad magaalada ku ijaafaysatiin ama social media aad dhex dhigtiin ama qofkan saasuu dhahay ninkan nin saas waay, nin kidii waa inaad dhahdiin ma aha. dad yahow waa idin salaamaya, islaamka marka ugu horeysa idin salaaminahay waaba kasoo tegaybo. marka waxaa idin salaamaya, waxaa idin sheegaya marka cunugan inuu islaam yahay oo diintaas islaam oo ku dhashay oo ku barbaari oo aad ku taagan yahay oo salaada masaajid aada shantiis salaad dukanayo, sunnadiis dukanayo. nin oo kristaan ma aha, nin salaad oo ka tagay ma aha, nin ilaahay ka furtay ma aha. ilaahay ka cabsada.
naagtaas naag gaal waaye shayaadiin ah oo shaqadeedu saas ay tahay inay dad ay gaalisayso waxay qofka 11 waaye shahaadada kusoo daraayo islaaminayo qof marka islaam ahayn oo dhahay islaamka kasoo dhigay waa dareemi kartiin marka qoftu waxay tahaybo marka dadka yaan xaganin ninkan warqadaas uu aqriyay ninkan qalawdiis ma ahayn aduu oo gaaloobayo meesha kalaabka laga aadi lahaybo oo tagi lahayba diib lugiis ugu doontaa taas laakiin gaalnimo ay tahaybo laakiin nin oo dad laba oo maxay dhahan oo wadahadal u dhexeeyo guur iska ballan qaadeen in oo wax dhib uu ka imaanaysan jirin oo hadda ay dhahda eedana qorsheed u ah inay waxay ka samaysto ay ka tagto waxay rabtay ka samaysato way ka tagto nugi hadda waxay soo dhigtay in ninkaas gaal uu yahay abshir cabdullaahi gaal maaha ilaahay ka cabsada anaa dhalay 140 ku raali noqda cunugan cunug islaam ee waa cunug muslim ee waa anigu muslim aan nahay anigu haddaa qofka jihaad ku cuno balaayada guriga saqjaan anaga ma joogin kitaabkaas ilaahay naga garbeen malaa'ig baa saaran laakiin haddii qof bini aadan wixii loo sheegay aan waa idin sheegay wiilkaygana ha isdhihina cunugan gaalo waa cunugan sida waa fadeexada hadda idinka magaalada dhex taalo hadda idinka fadeexinaysiin ma aha taas yay u qaadanina cunugan cunug islaam waaye cunug oo islaamnimada ku taagan waaye masaajidkiisa aada waaye ashadinka oo yaqaano nin taariikh salaad ma aha nin diin ka sayni ma nin diin ka saay waaye ilaahay ka cabsada waxaas beriyo ka yahay cunugan warqadaas oo akhriyeen ilaahay qalowdiis oo daalacana warqad ma lagu gaaloobo warqad oo akhriyo warqadaas isoo akhriyo dhaad gaalaad tahay dhaad waxaas ma lagu gaaloobo ilaahay ka cabsada idinka waxaas social media dhax mushaacisiin dhax wadiin ilaahay ka cabsada garbiin malaa'iga in saaran ilaahay u noqda raali noqda cunugan cunug aan dhalay waa anaa dhalay cunug oo gaalnimo had usoo socdana ma aha wax la mid ah taasaa idin sheegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dalkeena soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horreeyey ee wax ku qala qalabka casriga ah ilaa briscopiga ama laysarka dhakhtarka oo daboolay baahiya caafimaad ee loo aadi jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qalliinka guud iyo kuwa casriga ah ee laysarka maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho ee hore u gaar ama wixii faahfaahinta dheeriga kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya